madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay safarkii maanta magaalada Beledweyne ay ku tageen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya kuwa oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa Waare waxa uu been abuur ku tilmaamay wararka baraha bulshada lagu faafiyay diyaaradii siday madaxweynayaashii hore ee dalka iyo wafdi la socday loo diiday in ay ka degaan magaalada Beledweyne isla markaasna la damiyay raadeerka garoonka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabelle ayaa shirkadda la diyaaradda maanta Beledweyne u qaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay xirfadii duulimaadyada isla markaasna duuliyihii waday uu qaatay go'aan riski ah sidoo kale waxa uu sheegay madaxweyne Waare in shirkadda la diyaaradda la xisaabtami doono kadib markii maanta ay qatar gelisay wafdi heer caalami ah waxa kale oo uu tilmaamay Waare in madaxweynayaashii hore ee dalka uu ku wargeliyay in xaalad qatar ay ka jirto garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne oo xalay roob ba'ani uu ka da'ay sida darteedna aysan u suuragelin in diyaaraddu halkaas ay cagaha dhigato safarkana ay ka baaqdaan hase yeeshee waa uu diiday Xasan Sheekh sida uu warka u dhigay madaxweyne Waare ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa carabka waxa uu ku dhuftay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh ay u socdeen gurmad loo sameeyo dadkii ku fatahay webiga Shabeelle sida darteedna ayna jirin cid iska hor istaagtay safarkooda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Xasan Socdaal Ras Media